Shiikh Cali Abdiraxmaan Cali Mukulli oo ka mid ah shiikyada waaweyn ee Soomaalida oo inta badan dadka ku daaweeya Quraanka Kariimka ah iyo dhirta dabiiciga ah ayaa maanta soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoona shiikha si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka bari ee magaalada Burco waxaana ugu horeyntiiba shiikha magaalada Burco ku soo dhaweeyay salaadiintii iyo cuqaashi kala duwanaa ee soo dhaweynayay shiikha maanta oo bishu 3 tahay bisha 8 waxaan halkan ku soo dhaweynayaa duleedka magaalada Burco sheekha weyne caanka Sheikh Cali Mukulli oo ka soo safray gobolka Laascaanood iyo gobolada bariga waxaan kugu soo dhaweynayaa sheekh adiyo waftigaaga gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco soo dhawow baan ku leenahay Sheikh Cali Mukulli iyo waftigiisa Shiikh ku soo dhawow gobolkaagii degmadaadii oo ku dalbaday gobolka Togdheer degmada oo ku dalbaday ku soo dhawow Sheikh tafadal sidaas walaalkeen maanta waxaan soo nin culimo oo shiikha waftiye badan buu soo dhaweynaa maanta oo nin shiikha culimada Sheikh Cali Mukulli oo inoo Sheikh Shifaa Rahma inoo wada ayaynu halka ku soo dhaweynaynaa maanta ay taariikhdu tahay bishii 8 halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa shiikha caamka ahaa Sheikh Cali Abdiraxmaan Cali Mukulli waxaanu leenahay shiikhana ku soo dhawow xaruntii gobolka Togdheer gobolkii ragga ku soo dhawow si mug iyo miisaan labaan kugu soo dhaweynaynaa anagu waxaan kamid ahay waxa weeye cilaajada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer muddo waxa weeye 8 sano baan ka shaqeynayay waxaan kugu soo dhaweynaynaa waxa weeye si mug iyo miisaan la gacmo furan iyo qalbi furan iyo walaaltinimo aan kugu soo dhaweynaynaa waxaan halkan kaaga ballan qaadaynaa inaanu kula shaqeynayno si mug iyo miisaan la inaanu kula shaqeynayno insha Allah inaanu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu ku garab gali doono oo si waxa weeye daacadnimo walaaltinimo inaanu kula shaqeyn doono magaaladuna waxa weeye way u baahnayd waxa weeye shaqadaada iyo waxa weeye systemkaaga iyo quraan akhriskaaga iyo dacwadaada way u baahnayd in badan baan waxa weeye aan isku daynay inaad waxa weeye gobolkan timaado maanta Ilaahay idinkiisa waanu ku guuleysanay insha Allah ta'ala si mug iyo miisaan aan kula shaqeynayna waanu ku soo dhaweynaa magaalada Burco annagoo dadka culimadii iyo waxgaradkii iyo cuqaashiba waxaan ku soo dhaweynaynaa isagoo diinta dadka ku daaweynaya insha Allah dad badan oo xisbiye badan baa la soo dhaweeyaa iyo dhaqaatiir dawaynaa garanay basita marka waxaan leenahay ku soo dhawo gobolka jasaakum Allahu khayran jasaa annaga iyo culimadu waa soo dhaweynaa insha Allah salaadiinta cuqaasha culimada gobolka Togdheer ee waliba loo yaqaano culimada khuruujka fi sabiilillah ku jirta kulli qoladaas culimadaas ugu badan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta ka dib markaan ka imaado salaanta waxaan soo dhaweynaa Sheikh Cali Mukulli oo Sheikh had iyo jeer aan ka daawanay saxaafadda oo aanu ka daawanay TV-yada website-dada isagoo ku dawanaya dadka islaamka Quraanka Kariimka iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inta isagoo ku dawanaya ayaanu daawanay inta markii aanu daawanay dalab badan baa ka yimid Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer dalab buu ku yimid oo yimaado goboladana soo eego ummadda uu Quraanka saaro أنا أروح نكمل يوم القرآن كوساري بنكمل إن شاء الله تعالى وحنا نقصدوا قبل كاجي تمرد الصومالي لان قصدوا قرآن قبل كتقدر وقصدوا إن الشيخ أدقيه وفتدوا طبعا كمان فرمان قصدوا إننا وأنا كل شغلنا إن شاء الله تعالى سيدنا الله قبرتي علماء رون قصدوا قصدوا أدقنا السلاسل قبل رون قصدوا إن إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلوا شيخ مقالة قبل كبر تقدر تقبله شيخ هو إنك بوفرية شيطانك يتشنك يوح والبا وحول لي شيء خرب ما له هنا دم كسول وبا مع سحر كباب اللي قبل وبقال قبل كده بوضع سحر الدقيقة يوحنا السلام على وحنا العقاش اللي وحنا كسول وين سلامته إسلامك Sheikh Cali Abdiraxmaan Cali Mukulli ayaa isaguna dhankiisa uga mahadnaqay soo dhaweynta ay reer Burco u sameeyeen waxaan aad iyo aad ma garanaysaa farxad gelisay waxaan aad iyo aad ma garanaysaa raalli ku noqday soo dhaweynta Diiran ay soo dhaweyseen insha Allah daalkii safarkii waxaan ku ilaaway soo dhaweyntiina iyo meesha nagu timaadeen iyo halkaan iyaga ma garanaysaa magaalada uga soo baxdeen nagu timaadeen waxa Ilaahay ka rajeenayaa inta muslim ah oo ma garanaysaa maqlaysa muuqayga maqalkayga taqaan intaan aqoonba inuu Ilaahay ma garanaysaa inta xanuunsanaysa Ilaahay shaafiyo inta dib qabta Ilaahay ka dulqaado inta ka nimid inta u soconaba Ilaahay baa caafimaad ka haya Ilaahay boqorka casiiska waxaan u weydiinayaa ducadiina
iyo inta muslimna soo ducaynayso inuu ilaahay ma garanaysaa muslimka u soconna ilaahay shaafiyo intaasi kadib shiikha ayaa loo soo galbiyey xarun cusub oo uu ka furtay magaalada Burco iyadoona xadhiga laga jaray xaruntaasi cusub ee quraansaarka Daarutaqwa insha Allah taala shiikha markaan arnay gobolka Togdheer ama guud ahaan Soomaaliland baahida taala ee sixir iyo jin iyo il markaan aragnay iyo baahida loo qabo in maartay cilaaj noocan oo kala ah magaalada ka furmo insha Allah taala meesha Muqdisho la yiraahdo ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fajiyaan ugu tagno Soomaaliya Muqdisho aan ugu tagnay daaru cilaaj isagoo ka furan tahay oo caalamku ku qulqulayo halkaas daraad Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fajiyaan bariyo badan iyo maartay hadal badan iyo ku noqnoqosho badan iyo shuuro badan kadib inuu aqbalo shiikh inuu halka noo raaco xarunta xagga ay maartay soo xiranto shaqadeedii ay si yaraato saadaradeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa aqbalo shiikhu safar iyo maartay wada dheer ka bacdi Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nabad keenay hadda waxaan maartay gobolka Togdheer aad iyo aad u maasiyay laana waxa weeyaan ay si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen wadad qalbi wanaagsan gobolka Togdheer insha Allah ta'ala hadda waxaan u taaganahay oo shaqadu insha Allah ta'ala shanta bisha oo ka bilaabi doona Sheikh Cali Cabdiraxmaan Sheikh Cali Mukulli xarunta Daarutaqwa ee ku taala gobolka Togdheer gaar ahaan xaafadda Maxamed Cali insha Allah ta'ala shaqaduna waxay noo furmi doontaa shanta bisha insha Allah ta'ala ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.